السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشر كاني أيان قاطن إن سيدا للسبوح الحلو حروفها عربية. أوكي وحين يجينا عينك مركوبه الرأي وحكى سبب كل شيء ورت عينك سيدي سبب حكم جاي حروفها حكل بكل شيء مكرا. مركا هذا وحين شينا عينك قاب كل وجود شنكرا حق وحول جري شنكرا وحرف كحيج ولا وجود شنكرا كان ولا وجود شنكرا حرف كل لما نعب ولا وجود شنكرا كان حق نجيس كان وبا لا وجود شنكرا لكن سجى وقدم بيا وحرف وقدم بيا بويا مركا وحكى له حين كحيج مو بتشربه كان حرف كوجه الرئي وحكى له حين كحيج مو بتشربه مركا محن سمينا يتصل هان عين كيما عين كساسو قرما مركي سكره نون كنا ساسو قرما بعض ساسو قرنته وحل يري سكول دجي عينك سدا صدايسا نونka waxaan ku yiri ilig baa loo taagaya kaliya dhibicna waa dushaas laga saaraya oo bacday la mid tahay tan hore kaaga soo warramay taasaan dhahayaa nunka dhibiciisa loo taagaya bacda markay ugu dambayso watan ku laba ilig baa loo taagaa iyada saasaan dhahayaa marka waad aragtaa caynka nunka si ugu dhagsamay okay marka ay tahay bartanka oo ay bartanka tahay iyadana waxaan dhahayaa taada tusalaanta baa la yidhiibay ayna waxa ay bartan ku yahay baabaan ugu dambaysa aynka madaxiisa waa inaan qaabkaas qorayaa taadi baan soo qorayaa aynka madaxa yar baan u sameeyaa madaxa yar qaabka weeg faada iyaduna qaabkaas oo kale u soo yar eegtay laakiin waxay ku kala gedisan yihiin hadhowta markaan faada marayno way idin ku sheegaya marka baadina wata labadii rikood baan u taagay taawiyaan okay hadii ugu dambayso oo caynku ugu dambeeyo tusaalahan baa la dhiibay jimba ku xiga lagu yiri waxa ugu dambeeya lagu yiri caynka marka asaas loo qoraa markuu aan isku rarakibayo baadi saasaan soo qorayaa iliga yar baan u taagayaa dhibic baan hoosta ka siinaya jimka saasoo kala dhahayaa dhibiciisi isna hoosta ka sii caynka marka qaabkaasaan dhahayaa madaxa yar ee qaabka u eeg baan caynka u sameeynaya marka qaabkaas weeyaan caynka iyo qoynka waa isla mid marka waa dhaafaya qoynka caynka iyo qoynka waa isla mid marka bahbah bay yihiin waa isku mid dhibicun bay ku kala gedisan yihiin faada iyo qaafkuna waa isku mid iyadana dhibicahan bay ku kala gedisan yihiin waa kan daba caynkii iyo faadii waa tan lahaa faadu qaab bay yiraahdaa okay faada waxa la yiri fa baa la yiri yana waxa la yiri ho laanna walisi marka faada ugu horeysa iyada bartanka laanka ugu dambeeya see u qoraya waxaan u qorayaa faada saasaan soo qorayaa ka bacdina yaadu waa tan ku sida baada loo qoraa laakiin laba dhibcood baa hoosta iyada la siinaya laamkana saasaan loo soo qorayaa marka xarakooyinkooda ay markaas ku qoranayaad isticmaalaysaa fiila ama fiilu oo kale qaabkaas dhahaysa faadu markay ugu dambayso hada markay ugu dhaxayso ma leeyahay tusaalaan saad baleysiyay markaas faana la ugu daray oo leeyahay bartanka noqoto ra'na baleysiyay markaas sidee baan isticmaalayaa saadkii baan soo qorayaa waatan ku ilig yar baasan lagu taagaa saadka faada saasaan dhahayaa kubad oo kale madaxa kubad oo kale qaab kubadeed oo baa loo qorayaa caynku laakiin saasoo haa faadana iyo qaafka wasaas way kala gedisan yihiin marka madaxyada suma eeg madaxa caynka iyo qoynka si madaxan caynka iyo qoynka si madaxana faada iyo qaafka si okay marka waa kan saadkii baan soo qoray faadii baan ku xijiyay ra'dii baan ku xijinayaa okay faadu xukuumada xurufaha ku dhegsami kara wax kasta halkaas waa ku dhegsami kara marka laga reebo lixdii xaraf oo iyagu diidanaa in dhankan waxa ka ah aan lagu dhijin karin okay waxaan isticmaalayaa tusaalahan tafun oo kale baan qorayaa ta'dii wataa lagu yiri faadina wataa faadu ugu dambaysa marka taada dhibic saas soo jiid faadana saa inta tirahay saasoo dhig saasa loo qorayaa marka faadi marka uu ku dhegsami karaa hadii ra ka xigta xaqan hadaba faadina gooni baa laga dhigayaa raadina gooni baa laga dhigayaa sababtoo raada diidan raada waxay ka mid tahay xuruufaha diidan oo leh wixii xaqan ka xiga yana la ku dhijin
ra'da weeyaan mushkiladu maaha fa'du waa ku dhegsami lahayd haddii xaraf kale ahaan lahaa. okay fa'da iyo qaafkuna isla mid aan kasii socdo kaafkiiba inoo haray kaafka markuu ugu horeeyo kaafkaasa loo qorayaa bal hadda kaaf aan soo qoro iyo laam baa laga qoray iyo ba baa la qoray marka kaafku markuu ugu horeeyo saasaa loo qoraa laamku markuu badhtanka yahay ilig baa sidaa dheer loo yara taagaa dheer oo kaafka dhan leeg basa inta loo taago baa halkana qaabkaasaa looga socodsiiyaa yani qaabkaas waa inay xaggan iyo xaggan ay isleegyihiin ba'da saasaad u qoraysaa iyadana tabaadii labadii ilkood oo yarayda loo taagay markay ugu dambayso laba ilkood bay leedahay laakiinse markay ugu horeyso hal ilig markay ugu dhaxayso hal ilig weeyaan marka kalbuna qaabkaasaa loo qorayaa okay haddii kaafku dhexda ku jiro ba baa la qoray kaaf dhexda baa lagu dhiibay ta'na waa la qoray bakat oohin baa la okay ba'dii baan saasoo qorayaa tan kuraa ilig hal ilig baa loo taagaya iligga loo taagaya waa kaa ugu horeeya dhibicna hoosta laga yani dhibicdeedii baa la siinayaa kaafka sidan inteed u qolaabtii sidaan dheh kaafkiina ka maxaa xiga ta baa xigta ta'da halkaas markaa kaga dhejinaysaa ta'da kaafka ilaa intaasuu leeyahay markaasaas qaabkaasaa loo qorayaa haddaad rabtiin eegtidna midabka cagaaran ama midabka greenka ayaad eegaysaa okay kaafka wuxuu ka mid yahay kuwa lagaga dhejin karo dhankan xaggana waa lagaga dhegsan karaa xaggana waa kaga dhejin kartaa xaggana waa kaga dhejin kartaa mid kasta waa xuruufaha wax walba lagu dhejin karo miim baa la qoray laam baa la qoray kaafna waa la qoray waa ugu dambeeya kaaf yani waa ugu dambeeya kanaan ka hadlayaa haye miimkii baan soo qorayaa laamkii waatan ku xoogaa saa u dheeraysiiya kaafkana la sin intaa la sintida kaafka qaabkana loo qorayaa markuu ugu dambeeyo kaafka qaabkaasaa loo qorayaa markuu ugu dambeeyo kaafku waa saa laakiinse markuu ugu dhexeeyo waa kaa markuu ugu horeeyana waa kaa waa isku qaab marka xaggana waad ka garan kartaa halkaa waad ka garan kartaa dhexdana ku jira waa aragtaa laakiin markuu ugu dambeeyo qaabkaasaa loo qorayaa kaafka marka waa inaad aada uga fikirtaa kaafka waa keligii xarafka ku xiga waa laamka see loo qoraya laamku xaggana waa laga dhejin karaa 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 aynu eegno haddaba xuruufaha wax walba lagu dhejin karo kamid yahay okay laamka markaan soo qorayo marka ugu horeysa waxaa la yidhi laam iyo xa baa laga dhiibay haye iyo miin baa laga dhiibay markaasaa la isku dhedheji laamka saasaan soo dhahayaa saas sida hadda halkan ku qoran tahay oo kale baan ka dhagayaa xa'dii baan saa ugu dhejinayaa xaad wata bartanka markay tahay saasa loogu dhejiyaa miim baan halkaasaa ugu rakibayaa marka haddaad eegtid isku qaab baan u qoraynaa waka okay maxaa iyadana laga dhiibay waxaa laga dhiibay marka laamku uu dhexda ku jiro miim baa la yidhi laamna wakaasaa lagu yidhi xaana wataasaa la yidhi xaada saasaa loo qorayaa okay maxaa samaynayaa miimka marka ugu horeysa qaabkaasaa loo soo qorayaa laamka waatan ku sidaa inta u taagtay sidaa halkan usin kan geeskan ah iyo kan geeskan ah waynay siman yihiin xaaduna markaa waynaan kusii daraa okay qaabkaas weeyaan waa kan laamka dhexda ku jira marka labada dhinac baa lagu dhejin karaa xa baa la yidhi qor miim iyo laam ha ugu dambeeyo laamku markuu ugu dambeeyo maxaan samaynayaa xaada soo qor miimka ku xiji laamka sidaas ayaad ka dhigaysaa laamka waa inuu hoos u yara dhacaa marka hoos buu u yara dhacayaa eeg hadda xitaa tiisa hoos buu uga yara dhacay xagga uu ka yara dhacaya waa xaggee waa laynkan waa inaanu la sinaane hoos ka yara dhacaa qaabkaas weeyaan okay laamkii isagana waa sameynay miimkii waa inoo hadhay miimka iyo inta dambe inoo harsan waxaan sameynaynaa casharka nagu xiga insha allahu tacaala aad iyo aad baan salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala